بسم الله الرحمن الرحيم ولاليال وولالكين مصطفى يوسف علي waxaa jirta arrin aan raba inaan idin la wadaago idinkagana digo oo been abuura saliid waxaa jirto ay walaalo ama dad Soomaaliyeed sheegeen ama shirkado ay ku xayeysinayaan sawirradeyda oo ay leeyihiin waxa ay soo saartaan tinta saliidda waa been abuur waxba kama jiraan anigana ma isticmaalin yaanan maartay idinku qaldin hadaad aragtaan sawirradeedu la isku keenay waxaasi wax kama jiraan saliidana maan isticmaalin walaalo badan baa isoo weydiiyay ila soo xiriiray qaarkood mooda aniga inaan leeyahay shirkadahaas qaarkood mooda inay run tahay waxa la iga sameeyay waxba kama jiraan walaalayaal saliidna tin ma soo saarto cidii waxa idin sheegtay been bay idin sheegtay marka digtoonaada walaalahaasna waxaan uga digayaa in ay beenta iska ilaaliyaan rizqi ay been ku raadiyaan wuxuu ka noqonayaa xaraan marka ganacsigooda xalaal ku raadsadaan xaraan ay ku raadinin kale waxaad ogaataan mu'minnimada iyo runtana inay isku xiran tahay oo uu rasuulku yiri al-mu'minu la yakdib qofka mu'minka ah been ma sheego macnaheedu waxay tahay hadii aad been rizq ku raadiso rizqaas inuu xaraan ka noqonayo labo in adigana aad ku sifoowayso ama aad soo galayso sifihi munaafiqnimada oo munaafiqiintu inay yihiin dad been badan oo marka been sheega sifaha munaafiq ay kamid tahay marka dadka Soomaaliyeed waan uga digayaa saliidin ii soo saarta ama soo saarta ma jirto oo marka walaalaha tilmaamay in aan marka hore tin la'aan aha kadib saliidu ay tin ii soo saartay walaal been bay sheegeen anigana ma ihi imana soo saarin marka sawiradeedii ay soo saarteen waa been abuur iska ilaaliya Allah idin xafido assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ku wargelinayaa dadka Soomaaliyeed laga yaabaa inay arkeen muuqaal ama sawir la isku dhajiyay mar ma aragtay anoo bidaar leh iyaana bidaar lahayn intaba taasoo idinkaga digaya insha Allah waxaan qoslaysaa in kale way waxaad gudbeen bidaar wax been abuura oo muddo socday been abuur ma ruwaay kama duway والله أنا خسرني بالله والله تاخذ لي تبان ليش تقول لي بدار لي ما له والله سيد لو حي سياده سيد بيجي لو حي سياده لا يبان أبرتي ها انا قال لي ها بدارته waxba kama qabato بدارته waxay ka qabato hooyaraatay والله بدارته ما لا يدري وبلا برك جربتها عندي حل شيء كوفيد مقفول والله جرب والله استغرها والله كوفيد بري عبد الله كوفيد بري ما يا تصادم كلام انت ولك بدار عوره وانا قصدي ابو حيردمي ما بمشي المفروض بالله